بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaladey meel kasoo joogtoon salaamaya walaashii nimco iyo mar labaad aad iyo aad baan u salaamaya khayr badan u rajeynayaa meel kasoo sugan tihiin nimco iyo nabad qab iyo barwaaqo iyo fadli ilaahay ku waara insha Allah biidni illaahi tacaala. qaar shaakiriin oo xaamidan ilaahay naga wada yeelo meel kasoo joogno qaar ilaahay xusa mar kasta ilaahay xusuusnaada aan ilaahay ka barina subxaanahu wa tacaala. aad iyo aad baan u salaamaya waxaan u rajeynayaa inaad u dhageysatiin maanta hadalkan ama qasadan yareen soo la soo mushaarakenayo oo dhanka mataqaanayay cibra qaadashada iyo ku dhaqankaba laga wada eego insha Allah. ana ka iloobina mushaarakada walaaladiin kala mushaarkaysiin oo la sheergaraysiin subscribe kana saara insha Allah si aan ogaadana qasadaynu cajibiyeen oo in badan soo doondono soo kordhiyo. dad badan baa daawada laakiin subscribe kuma laha ka iloobina maba saaraan ka insha Allah fadlan si aad u fahamtid waxin loo bogay wax fiican tahay manfaacad ku jirto iyo in kale subscribe aad wanaagsan tahay insha Allah soo saar hadii la ilaaha ka hilmaamina. yaqiintu waa maxay walaalayaal? yaqiin qofku inuu yaqiinsan yahay ilaahay baan aaminsanahay, ilaahay waa rumaysanahay subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu jiro يوم الآخر ويوم القيامة iyo mataqaana khayrka camalka shaqeynaysid abaalmaristiisa ilaahay ku siinayo waynu aaminsannahay. laakiin dadka qaarkood waxay malaynaysaa inay mataqaana u nool yihiin yani iska tijaab iska samee oo iska soco laakiin ma yaqiinsana marka lagu leeyahay adkaarta oo kale ducooyinka qofka ku ducaysanayo kiyo huba oo yaqiinsan huba oo runtii yani qalbigiisa ay ka soo go'an tahay inay waxaas ilaahay u hirgelinayo. inta badan dadku way ku yartay yaqiintaas la oran karo waqtiga xaadirka la joogo waxay isleeyihiin maxaan ku raadada deedu dadaal u weeyaan dadna maba dadaalaanba oo wadada maba hayaanba. laakiin dadkii hore iyo ummadii hore waxay naga duwanaayeen baan oran karaa yaqiinkooda ilaahay rumaysan yihiin ayaa aad iyo aad u badnaa. waxay yaqiinsanaayeen wax kastoo ilaahay ku ballan qaaday inay helayaan. waxay ogaayeen wax kastoo khayr sameeyaan in abaalmaristis helayaan. wax kastoo sharayo caaqib xumo iyo mataqaanaaye gafna inay mataqaanaa abaalmaristeeda xun ay helayaan ama adduunka ma aakhiro. saa darteed bay iska ilaalinayeen in mataqaanaaye ay ku dhacaan waxyaalahaas oo kale. laakiin waqtigan xaadirkan joogno waxay oran kartaa waliba khaasatan jiilkan cusub oo dhan dhalinyartan cusub oo dhan waxaa maba yaqaanaan. inaguna waalid ahaan iyo mataqaanaa dad mataqaanaa bulshadii ku dhex nooloo dadkii mataqaanaa inay waxu sheegaan ay tahayna waxay moodaa dadku inay u dhegdhigay wax laga hadlayabo adduunka macmacaankiisa dhalaalkiisu inay carruurtii iyo dadkanba ay mashquulisay oona la fahamsanayn. waxaan leeyahay ilaahay isku xidh, ilaahay isku hallee, ilaahay tala saaro, ilaahay wax weydiiso adoo yaqiinsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ku siinayo. dadkii hore waalidiintii hore cilmi iskuulamay tegin, malcaamada may tegin, malgaba qaarkood cilmi haagsan may soo baranin, laakiin qalbigoodu yaqiinkaas ku sugnaa. qalbigooda ay ku xasilnaa taasoo ay dee dhaqankii iyo bulshadii ku dhex noolaayeen iyo jiilba jiil kusoo dhiibayay waxay kusoo barbaareen fitrata islaam saliima iyo ilaahay mataqaana isku xilkiisa saliimkaha ay dadkaas kusoo gaadheen. maanta qasadeenu noocaasoo kale ku saabsan tahay waxay ku bilaabanaysaa qaabkan. gabadh baa soo qortay, gabadha qasad waxay kusoo qoraysaa inay mataqaanaaye subxaanallah ay la nooleyd ayeedeed bay la nooleyd oo maxaan ku dhahdayay waqti xawrabay yacniga muddo dheer bay ayeedeed wax la-aan iyo busaarad iyo nolol waxay daciif bay ku noolaayeen. waxay tii waa caruurnimadeed waxaan la noolaaday ayeeday baa muddo la noolaaday manay lahaysanin bay tiri ayeeday tacliin in ku filan oo mataqaanaa cilmi weyn may lahayn hooyaday. laakiin ilaahay wuxuu ku arsaaqay intaa in ka badan oo ah xikmad iyo fitrad saliima oo cajiiba bay tiri iimaan camiiq oo qalbigeeda ku raasuqay. marar badan ayaamo badan baa gurigeeda soo mari jirtay bay tiri taasoo duruuf mataqaana dhaqaalo daran oo ba'ani ayna haysato. sidii waxay tiri dee meelo badan iyo guryo badanba dadku duruufta ay soo maraan sabab kastoo asbaabteeda tahay. marmar waxaa dhici karta bay tiri in mataqaana abtigay ula raago inuu biilka usoo diro oo ayeeyday oo mataqaana waxay mataqaana ku dabarto guriga biilkii iyo mataqaana waxaas si umuurta maanta ay ku gabaxdo xilka iyo mas'uuliyadka soo food saartayba dariiqad ku ka baxdaba subxaanallah ilaahay buu dabir jiray. marmarka qaar ku bay tiri subxaanallah azmad kasta ma dhibaato ka soo food saartaba siro fudud bay ka dhaaf jirtay bay tiri. waxaan iloobin bay tiri marnaba aanan iloobin. marba waxay tii ayeeday ay soo martay mataqaanaaye daraf ama waqtigu aad u darna markaana bay tiri xisaabteeda kumay jirin waxa dhici doona waxay ku sii tala gashay mahan qadarta ilaahay waan iska soconnaa.
waxaa dhacday in suuqa ayay u dhaadhacday si ay alaab yar u soo iibsato waxa ka lumay markaa ayeeyo kiiskii yaraa ee lacagta ay ugu guntanayd mise qof baa ka xaday suuqii waxay soo noqotay gurigii tiyo yaaban oo fajacsan oo mataqaana dee qof mataqaana maskaxdu fikra soo maqan waxay u dhaqaaq dhankii kabarkii dharka ay degdeg u dhaqaaqdo waxay si ka soo saar bal shayga u dambeeyay lacagteeda u dambeysay kabarka dhexdiisa ay ku qarisay ma iloobi karbatay u istaagtay meeshii ugu tawaftay ayeeyo tiyo shantii u dambeysay oo shantii gini u dambeysay malaha lacagtood giniga qolada horta waa masaarisan u fahmay qisada waa gabadh masriida xukuraysa shantii gini u dambeysay ayaa waxay tahay gurigoo dhanba ay haystay ayeeyo ayaa soo hadhay muddaysaa daqiiqad dhanbay lacagtii sidaa u eegtay sidii wax ay mataqaanay maskaxdeeda soo marmarayso hadallo afkaar fara badan mataqaanay ka fikirayso xisaabo badan oo galayso xisaab badan oo galayso mataqaanay maskaxdeeda ay ka eegayso mataqaanay waxaan ku weytiin dhaheeda waxaan ka helay oo ka arkay aragti gabadh xoog badan oo quwad badan oo mataqaanay go'aan leh oo laakiin aanan caajisinayn duruufta soo marayso si kaliya moodo inay qaraar qaadatay ayeeyo qaraarka markay qaadatay way soo eegtay anay soo eegtay inaan teer baa hadlasay soo eegtay waxay waa tiyo mataqaanay qaraar kaco kaale isaacid bay tiri waxaan samaynayo kaale igu caawi laakiin waxay ka dalbatay waa wax cajiib oo waalan gaaray bay tiri inantii waxay ugu tiri in suuqa tago oo soo iibiyo 10 midho beeda 10 midho kuna ama naala salo kala yaqaano iyo rubuc kiilo cadasa misirkii ama cadaskii mataqaanay galadii waxaan karaayay in cadaska la cunayay waxaan moodabay tiri inay anaga noo karnayso ayeeyo walaakiin la yaab ku dhacday markay ayay karisay cadaskii bay dabka saartay tiyo karasoo fikraysa bay waxay tidoo walaqasa cadaskii urti udgoonida cadaska guriga oo dhan soo saaqday ma sha Allah beedkii bay fixfixisay karkarisay oo biyo karkaray ku karisay roodhi yaro guriga taalabay ayay deersay markaas in yaro milixa iyo in yaro filfilana iyo maxaa bacyar warqad yar xaashiyar ay ku laabtay midkiinta waxay wada qaaday ay suuqa u dhaadhacday waxay siisay dadkii masaakiintii xaafadda xayga deegaankayga jooga masaakiinta fuqaradii ayay u qaybisay waan waalan gaaray bay inantii waan naxay waxaan la yaabay yani junuun waan waalan gaarayba wixii oo dhan wuu dhammaaday wixii aan haysatay oo dhani ayay way dhammaysay waxa u dhammaysay dadkii bay siisay anoo ina qayliye qarka in yar u gaaran oo يعني حتى بالحبد ونسي بالحبد وكونون أنا قريب سي أيان أورن قاري بيتي ما أورنين لكن ده كأخرضي فتشعية إنك يا مكان جبتي إنتي أيه وحقول تريسي لبك المدوضة كوبان اصبري حتشوفي سوق صبر والأرك دون تايبتي أيه قلت لي هو أيه وان صون قني قولي وان صون قني عصر هتدير بهين وحن قبنا لما تشرتي وحن عنانا ما تشرتي وحقول إن هرت هذا هاي واحد إنا يرشي في سنة كاسي حنو لكن waxaan ku toosnay hurdadaydi waxaan ku toosnay abaarka xoog loo garacay riddi abaarka la tumayo waxa uu habeeyay wiil yar oo wiilasha suuqa ku iibiyo mataqaanay alaabta wax ku gadgada wuxuu yiri kiiskani waxaan u maleynayaa xaajiyo adiga leh maanta suuqii adoo horteeda socda buu ku dhacay makan dabcayna ku daba cararana saxmadii dadka baad galuntay maadaama qof uu amiina uu hada mataqaana subxaana ilaahay amaanadiisa wanaajiyo mataqaana lacagta qaata iska ilaaliyay wuxuu weydiiyay dadka suuqa ay wax iibinay ka gadgadi jiray meesha deganaa dadka suuqa ku iibin jiray islaanta mataqaaniin marka suuqu dhamaaday saxmadii kala yaraatay ayuu weydiiyay saloo tilmaamay haa waa islaantii heblaayo gurigeedii tilmaamaheedii markuu ku tilmaamaheedii sheegay ayaa gurigeedii loo soo tilmaamay sidaasuu maxaan ku rahday u soo noqday oo mataqaanayay u siiyay maadaama cishaqsa suuqa ay majtaadu u gartay dad islaamiga kala gartay u sheegay suuqa bacadlaha wax ka iibsan jirtay subxaanallah lacagta ma loo soo celiyay saacad gudaheeda dana baa kala garacay gig wuxuu noqday abtigay saaxiibkii oo safarka ka yimidoo dayn oo abtiga ku lahaa u soo celinayay dayn oo abtigeed ku lahaa ninkaasi ayuu u soo celinayay reerka ayeedeed subxaanallahi alcadiim intaan dhoofin baan ka qamahday buu yiri oo marka lacagtan isaga uu leeyahay hoob ku xaajid ku yiri waliba hadiyado iyo xalaawadna uu waday ninka uu siday maalintaasi ayeeday waxay ugu tiri yaa binti bay tiri اللقمة تزيح النقمة لقمة تقفسيسا نقمة يعرض أي فايدة مركزتوي أدونك علول كل نقضه مركزتوي حالده أتقو أتكاتو طغو بيت المسكين وحبه أما فقير أما قف حبه هاي سنين قوذي أو حسي
وأنكو قصته حنقولي طيب محد وح كرون أما كفي عن عدس كادو بحون ويد أييو محي يعني عدس كاد بحسان كو قصته بيتي وحتى عدسكو وحن وعنتوين كو قرآن كالقو صور شيغا مصر كاسي وقرآن كلا كو شيغا أنا بيتي waxaan dadka u siiyaa beyti saasi laana waan jecelahay waxa jeceshahay waxa leeydi dadka siibaytay waxaad waligaa ilaahay waxa dadka siisa waxa la faagala jeceshahay yani subhanahu wa ta'ala rabbina ilaahay uga weynaa waaxidka wuxuu fur doona kurbadaadu faydi doona wax badan arsaaqadana uu ku siin doona waxaan ku weynaaday beyti markaan weynaaday inuu qof weyn aan noqday waxa ii cadaatay oo cilmi sharciigi islaamkii diinta si fiican aan bartay beyti thaqaafadii ama matqana cilmiga ayeeday أيضا بربار إلهي كوب بربارية مدة بالشدة كقالتي أو نسكول الجامعة إنه قلنا هين إن أيديه هين إن تقاني بقيد على بيتي سكول الآن يوم العامضة الآن يعد وشكت الآن حديث كقدس جهاي إلهي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك ابن آدم وحب حصة وأنا وأنكم بحي وكسين دانا وحي برت أيدي قولك الله تعالى سبحانه وتعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق وحكسود بحسين إلى وحكا لو انكسو بدل كيسو استغى خير الرازقين أيدي ما يحفظ سنين بيتلي نصوص تاسي شرعي ما يحفظ سنين منين الجرنين لكن يقين كان أنصور شيء جني أي قلب جيد له حيدا يشير كذا بقى ساقي وكل احتسنا بتلي واحد مسمت أيامي دحنتي قبو متقناية ده تشيلك قبو دحنت بدن دعضو أنت بيتك أيدي كركرسو أي حقوقي بس أسكرته شارعية متقنا مرور كي متقنا أسكرت درك أسكرت ده كالماية طريقة كعاوية أي واحد أيدي وقيبسة أما واحد اللي عيش شير سندويتش شير فول كي أما طعم يد مساعد أدو تعلهينو ده محل باجيه وكله سومالي لهذان أي واحد لهذايا أي كركرسايو نيكو دوك حار أي سيسا وحن كوينا هذا بيتري أم برتاني كم كده فضل جه فضيلة الله هذا وحب حسان كله حلو بحنية وإلهي متقنا سامين وين وأدونك الدنيا أخربة وكو أركيا قلب يقين أو من سن أو نيس كو قرن كو أركيا حقيقة داسي أيان هربيتني إلهي سبحانه وتعالى هو أسطورة ذلك dad familiya fara badan oo waaweyn oo matqaar saqadood yartahay ayaa hadana asturan oo nolol fiican oo yasiira ku nool beetiri way ilaahay bala la ganacsanaya marka ilaahay ganacs la gashid ilaahay ba khayr raasiqiin ilaahayna uu karaabeynaya lutf iyo deeqdiisana uu kugu daboolaya waxa weeyaan ma sha Allah qisadaas ay ku dhantahay laakiin inagu waxa weeyaan nafeena maadaama dhalinyartan iyo waxa ciyaal waqti xaadirka jira in waxan bala soconin inaan fahamsiino أيقون أي قرطان إن إله يسكحر سبحانه وتعالى إنك لفتين دد واوين دينها إن نصلي لابنه إله سبحانه وتعالى إن نسكحرنه وإلهي إن وحبضه وناكسن إن كرتشينه إلهي بلنت مرنا بك كما بحو دد كيبا أيجي بايس ضيعي أو حمودية إن حوق يحيلد يكرتدو ده وحكوها قارسن كران أما إكو صوص ميسان كران وحاسنا وحرون هين وحلو بهنيها إن لو صنع الدين تين أبتهيد توضدي النبي عليه السلام لو جدي الطريقة مستقيم كهيد أرساقد واحد ما انتبه حساب برت أدم كوسنا قنصة شرعية بريكات دفاع سا أرساقد بدنو أنا تفليننا إلهي وكو أرزاقه سبحانه وتعالى يقين كأن من نقنه إلهي يقين صن إلهي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وحو إلهي نقدر محقل إنه لمايان هدي حنتهاي يا هدي مصيبتهاي يا هدي أرساقدتهاي يا هدي وحكستو إلهي كو قدر مويان وحكل هدين كو هلينين وانا دي قين سناتي تاسا ما المشاركين يا إلهينا يقين كان أحوتي إلى قلبك التقوى يا خلاص إلهي سيو إلهي جدك توصلني وضو توصل لهنا وضمريو دنبي والد كان لها دافو والدين تين لما إلهي ونحارس قبور روض مريض الجنة إلهي كيالو والدين تنول إلهي بركة عمر داري عمل صالح لها سيو إنك يا الفين يا أزواج تين دريد إلهي تتصالحين كدقو قار أمد صوماليدو اسكحران أو وناكسن أو جدك توصل مرس إلهي نكدقو وحين أنفعانكم مشغول يوتيوب إيو فيسبوك إيو سناب شات إيو انستغرام iyo waxaan oo dhan wixii faa'iido ku jirtay ee ku anfacay akhriya adduunka doono wixii aan faa'iido ku jirin ka gudub waqti lumis mooyaan khayr kugu jiro wixii ilaahay ku dhaweyn in la raadiyo weeyaan wabillahi tawfiiq akana iloobina subscribe iyo share iyo comment kana insha Allah ta'ala wabillahi tawfiiq wa sallallahu sallam barak ala man la nabiyya ba'da wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh